بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بأسكاله تبارك وتعالى ما ضمانتد سيغانا ويديسانينا التوفيق ده إنه وحي خيري صوابي وافجيه، وحي زلل إيا خطأ أنا إلهي تبارك وتعالى إنه نغا حفظيه وقتي كوبان درادي مسألة موضوع حاضرة كسها بسنتهاي si kooban haddaan wax uga tilmaamo masaladu waa mas'alo muhiim ah isbaatu wujuud Ilaahi tabaaraka wa tacaala Ilaahi jiritaankiisa ay ku saabsan tahay masaladaasina waxay asal u tahay masaa'ilul i'tiqaad oo dhan bay asal u tahay bal diinta oo dhan bay asal u tahay waxyaale wixii iyada ka soo hadhoon iyada ku dhisan yihiin hadii ilaahay la caabudo la yiraahdo waxa ka horeysa in la rumeeyo jiritaankiisa hadii la yiraahdo ilaahay alla sifeeyo sifaad buu leeyahay waxa ka horeysa in jiritaankiisa la sugo oo la rumeeyo hadii la yiraahdo aakhiro iyo is-abaal marin baa jirto isaga adoomada abaal marin doona waxa ka horeeya in la sugo lana rumeeyo jiritaankiisa marka kulli waxay ku dhismayaan masalada asalku ah way i'tiqaad iyo amalba iyada asal ah sayesha kala dhan iyada ku dhisan yihiin laakiin ilaahi tabaaraka wa tacaala jiritaankiisu waxay ka mid tahay waxyaalaha iska cad oo badiihiyaadka la yiraahdo dood badan in la geliyana ayna saxba ahayn Soomaalidu u taqaano masaayisha caasha garata bay dhahan yani waa mas'ala iska cad oo banaanka taalo way taariikhdana markii dib loo raaco adoomada Ilaahay tabaaraka wa tacaala wax inkiray oo diiday way yaraayeen wax la soo istaagay Ilaahay ma jiro way yaraayeen quraanku qoluu tilmaamay la yiraahdo dahriye la yiraahdo ولمنك القرآن نو شيغي اعتقادكودا يري ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أرنتو أو نولشا الدنيا ده وحكى لما تشيرو أو نولشن وان دمانا إنا وانا نولانا إنا وانا إنتا محا إذن ديليو إذن نولين يهدي ليلي وحنا ديليو حلوة الزمنك الزمنك أيا waxbaabiinaya isaga keenaya halkaas ay salka u saareen waxa kale iyagana soo maray nimanka mulxidiinta la yiraahdo horay u soo maray waayahan dambana aad u batay oo khaasatan fikirkan ilhaadka ilaahay in la inkiro ah waa falsafad ka soo jeeda casrigan hadda cusub madhabka la yiraahdo markisiga oo madhabka shuuciga la yiraahdo ayuu ka soo jeedaa waa madhabka uu ahaa shacaarku uu ahaa ama halku dhagu uu ahaa la ilaaha wal hayatu madda ilaah la caabudo ma jiro noloshuna waa uun maaddo way jiraan marka qoliyo fara badan oo sidaas qaar soo maray baa jira hore kuwa hadda jira fikirkaasi gadaal dambe waa sii xoogaysay falsafadaas ilaahay in la inkiro ku salaysan way baahday reer galbeedkii hadda aad ugu baahday jaamacaadkooda iyo goobaha waxbarashada falsafada la yiraahdo ilaahay itusoo itaabsi ma jira mise ma jiro doodeedu way ka taagan tahay oo mulxidiin fara badan oo muxuu ahay waxa soo baxay u badan jaamacadaha macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga u badan waana mid keentay in ay dad fara badan oo da'yar u badan oo jaamacadaha gala in ay kala soo baxaan inay ilaahay jiritaankiisa inkiraan hatta dhalinyaro fara badan oo yaani ka soo jeeda qoysas Soomaali ah oo jinsigeena Soomaali ah oo generation kan cusub ee hadda kacay Yurub iyo Mareykanka ku kacay reer galbeedka ah
ayaa waxay mashaakisha ugu waaweyn ee waajahaysa waxaa ka mid ah inay ka shakiyaan ilaahay jiritaankiisa. waxa keenayaan waa falsafada ay jaamacada ku qaadanayaan iyo macallimiinta wax u dhigaya oo mulxidiin oo aan rumaysnayn ilaahay jiritaankiisa. marka shubahaad fara badan bay ku beerayaan oo gelinayaan. ardaygiina ma uu laha aqoon iyo khalfiyo uu isaga difaaco iyo wuxuu kaga jawaabo shubahaadka macallinkan. marka dambana natiijadu waxay noqonaysaa inay inoo soo baxaan dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya oo ka soo baxay jaamacadaha reer galbeedka oo ilaahay jiritaankiisa ka shakisan ama inkirsanba oo diidan inay soo baxdo. marka waa halis weyn oo waayahan soo wajahan bay ka mid tahay. social media qaybihiisa kala duwan ayaa afkaarta noocaas lagu faafinaya oo shayaadiinta insiga iyo jinniga iyo mulxidiinta ayaa faafinaya oo dad fara badan ay afkaarta noocaas ka qaadanayaan oo kala kulmayaan. waa mas'alo mudan marka in wax laga yiraahdo la isdul taago, waana mas'alad ahmiyadeeda leh. jiritaanka sifatul wujuud waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah tabaaraka wa tacaala. bal wasaan horeba u soo tilmaanay waa sifada asalka u ah sifaadka intooda kale. jiritaanka rabbi tabaaraka wa tacaala iyo jiritaanka makhluuqu isku mid ma aha. makhluuqu waa jira, allana waa jira. laakiin jiritaanka alle iyo jiritaanka makhluuqa waxaa u dhaxeeya jiritaanka alle meeluu ka soo bilowda ma leh. makhluuqu se jiritaankiisu mar iyo meel buu ka soo bilowday. jiritaanka rabbi tabaaraka wa tacaala meeluu ku dhammaado ma leh. laakiin jiritaanka makhluuqu meel iyo xilli uu ku dhammaaduu leeyahay. sidaas daraaddeed allah tabaaraka wa tacaala waa mawjuud, wujuudkiisa iyo jiritaankiisuna ka khalqiga la mid ma aha. waana waxyaalaha markii ruuxu uu caqli leeyaho wax yar caqligiisa ka shaqaysiiyo aan la inkiri karin waaya ilaahay jiritaankiisa tabaaraka wa tacaala, waxaan shaki geli karin waaya. waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka inoogu sheegay afi llaahi shakun faatiri الsamaawaati wاlard. warma ilaahay baa shaki geli kara samaawaadkiiyo dhulalka abuuray oo bilaabay. macnaheedu wax weeyaan ruuxa ilaahay jiritaankiisa ka shakisan waa inuu ka shakiyo dhulka iyo samaawaadka jiritaankooda. ruuxa dhulkan uu ku taagan yahay ka shakisan ama samadan korkiisa u muuqata ka shakisanna bimacnaa waa mukaabir, waa ruux iska yeelyeelaya, waa ruux wuxuu og yahay isdiidsiinaya, ama waa ruuxan caqli lahayn oo yani waxa weeyaan garaadkiiyo garashadiiba la. waxyaalaha la yidhaahdo badiihiyaadka haddaadan dhulkan inkirsanayn, samadan jiritaankeedana inkirsanayn, qasab waxaa ka dhalanaya ciddii samaysay ee abuurtayna jiritaankiisa inaadan ka shakiyin. saas daraaddeed baa aayaddu waxay tidhi afillaahi shakun faatiri الsamaawaati walard. raadkii baa yaalla, samadii baa dhulkiibaa kana, samadii waa kana, isagaa abuuray. seebaad marka iyaga aadan uga shakin isaga uga shakinaysa. marka allah tabaaraka wa tacaala jiritaankiisu masale inay dood gasho ay tahay ma aha. qolyaha inkirayna waa qolyo inxiraafay oo muxuu ahay dariiqa ka leexday oo shaydaan lunsaday mooye asalka aadamuhu ilaahay tabaaraka wa tacaala jiritaankiisa inuu rumeeyo qiro intayna noqonin muxuu ahay mas'ala ay la timid kutubta samaawiga oo loo sharxay aadamaha ka hor baa waxay tahay mas'alo fitriya waa. sidaas daraaddeed baa daliilka adilada ugu muhiimsan ee ilaahay jiritaankiisa loo daliishado kow waxaa ka ah fitrada kow ka ah. bimacnaa wax weeyaan aladila alfitriya oo macnaheeda laga wado culimaduna ay ku tilmaamayaan sida sheekh ibnu cuthaymiin iyo caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay dilaalatu lfitra calaa wujuudi illaah aqwa min kulli daliil liman lam yani muxuu leeyahay tajtalhu shayaatiin. fitrada tusida ay ku tusayso ilaahay jiritaankiisa waa daliilka ugu xoog badan, laakiin waa ciddii aan shaydaan duufsanin. ruux hadduu shaydaan duufsado fitradii qalbiga ku jirtay ilaahay jiritaankiisa qiri lahayd baa markaa luntay oo wasakhowday, way qalloocatay.
si khaldan bay marka wax u arkaysaa laakiin intaan fitradaasi la qasin oo fitradu ay sax tahay aadamaha iyo makhluuqu waxay ku dhalanayaan oo ku imaanayaan oo lagu abuurayaa ayagoo ilaahay jiritaankiisa rumaysan macnaha waa macnaha qur-aanku tilmaamay oo alla yidhi tabaaraka wa tacaala fitrata allahi alatii fatara annaasa calayha dadku way dhalanayaan ayaga oo ilaahay rumaysan waa ka nabigeenu tilmaamay sal alla alay wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfitra mid kastoo la dhalayo ama cidda dhashay gaala ha noqdeen ama muslim ha noqdeen mid kastoo la dhalayo waxaa lagu dhalayaa oo uu ku imaanaya adduunka caqiido toosan isagoo ilaahiisa rumaysan allihii abuurtay isagoo rumaysan buu imaanayaa caqiidadii toosnayd ee ahayd ilaahay jiritaankiisa inuu ku yimid oo qalbigiisu ku dhashay waxaa ka bedelaya markaa bii-adaa ka bedelaysa qoyskaa ka bedelaya labada waalid baa bedelaya ee mujtamacaa bedelaya hadday yahuud yihiin markaasay yahuudi ka dhigayaan caqiidadii saxnayd ee uu ku dhashay bay ka bedelayaan hadday kirishtan yihiin labada waalid iyagaa bedelaya hadday majuus yihiin caqiidadii majuustay u bedelayaan marka waa fitradiioo la bedelay waay fitradii waa isbedel baa ku dhacay saamayn baa ku timid laakiin asalka markuu yimid oo uu dhashay wuxuu ku dhashay fitro saxa fitro saxa buu ku dhashay saas daraaddeed haddaan fitradaasi la bedelin oo uu sidaa ku weynaado xataa haddaan kitaab u imaanin rasuulna u imaanin laakiin fitradiisii wax bedelo uusan helin weli wuxuu rumaysan yahay alla abuuray oo sare inuu jiro saas daraaddeed waxaa daliil cad ah oo arrintaa ku tusaya hadda afrikaynu joognaa afrika waxaa laga helaa mujtamacaad weligood aan kitaabna gaadhin rasuulna gaadhin waxba maysan maqlinba laakiin say ku dhasheen waaye waa cawaam dadkaasi haddaad tidhaahdo ilaahay ma jiraa waa jiraa bay ku leeyihin weliba intaa keliya ma aha haddaad tidhaahdo yaa ku abuuray allah baa i abuuray buu leeyahy xaggee buu jiraa allah ku abuurtay kor buu jiraa buu ku leeyahy war habarta kukuyada ah ee 80 jirka ama jalwada ah weydii ee weligeeda waxba maqlin diin maqlin haddaad tidhaahdo ilaahay aaway kor buu jiraa bay ku leedahay xaggee bay ka timid kitaabka mayna dhegaysanin nebi uma imaanin sheekh wax uma sheegin xaggee ka keentay in ilaah baa jira kor buuna jiraa inay tidhaahdo calashaani waxa weeye waa markay dhalanaysay fitradii ay ku dhalatay oon weli isbedelin ooy ku weynaatay waay marka waa arrinta ugu muhiimsan oo tilmaamaysa waay dadkan kale fitradii ay ku dhasheen sax way ku dhasheen wayna ku yimaadeen adduunka iyagoo ilaahay qirsan laakiin shaydaan baa leexsaday shaydaan baa duufsaday waana macnaha uu tilmaamayo xadiidka nabigeena sal alla alay wasalam xadiidka ciyaad ibn ximaar almujaashici saxiix muslim iyo keyrkii ku sugan xadiid alqudsi waya rabbi leeyahay tabaaraka wa tacaala inii khalaqtu cibaadii xunafaa'a kullahum wainahum atathum ashayaatiinu faاjtaalathum can diinihim waxaramat calayhim ma axlaltu lahum waamarathum an yushrikuu bi maa lam unzil bihi sulطaanan addoommadayda waan abuuray buu alla yidhi iyagoo toosan oo qalbigoodu toosan yahay dhammaantood kadib shayaadiintaa u timid way duufsatay diintoodii iyo caqiidadii saxsanayd bay ka leexisay wixii aan u xalaaleeyey bay ka xarimtay wax aanan anigu soo dejinin oo daliil ayna u hayninna inay ila wadaajiyaan iyo shirki bay ku xambaartay marka addoommadu iyagoo toosan oo fitradabay yay dhashaan ayagoo baahan bay dhashaan sidaas daraaddeed markay dhibaata ku timaado oo mushkila qabsato midkii lahaa ilaahay ma jiro markay mushkila qabsato waxaad arkaysaa isagoo gacmaha taaganaya laanna waxay fitradii baa markaaba jiidanaysa waxbaa ka nool arrintaa marka waxay tilmaamaysaa waa daliilka koowaad bay culimmadu yidhaahdaan oo cad oo ilaahay jiritaankiisa tabaaraka wa tacaala si cad u qeexaya waa daliilka labaad oo culimmadu sheegaan qur-aankuna aada uga hadlay wax weeyaan wax la yidhaahdo muxuu ahaay burhaanu alxuduud bimacnaa adduunkan waxyaalo badan oo joogaan aragnaa innaga waan joognaa dhulka waa joogaa samadu waa joogtaa makhluuqaadka aan arkayna badihii iyo geedihii iyo waa waxyaalo jira waxyaalahaa jiraayey waxaa soo maray adduunkan mar aynan jirin
adiga waxaa ku soo maray oo adduunkani joogay adoon joogin waa timid hadda wax joogaata wax jiraata wax yar kadibna waqti marka la gaadho waxaan jirin baad noqon waad bixi meesha waad ka bixi imaanshaha marka aad timid iyo makhluuqan iyo waxyaalahan inoo muuqday kaa'inaadka imaanshahooda iyo jiritaankoodu wuxuu daliil u yahay ilaahay jiritaankiisa waana daliilka qur-aanku in badan ku celceliyo marka laga hadlayo in muxuu ahaayey addoommada ilaahay rumayntiisa tabaaraka wa tacaala lagu qanciyo maxaa yeelay waxay yidhaahdaan muxuu ahaay caalamkani waa xaadid shaki ma leh isagoon jirin buu yimid shay kastoo xaaditha oo yimidna cid keentay in la helo waayo iskama imaan karo wax kasta oo makhluuqoo la sameeyo la abuuray oo la keenay oo jiraay cid keenta waa inay jirto ciddaa keentayay tahay marka waata qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala uu kaga warramay oo uu muxuu ahaayey ku sheegay aayad uu ku sheegay allah tabaaraka wa tacaala uu yidhi am khuliquu min gayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaquu asamaawaati waalarda bal laa yuuqinuun am khuliquu min gayri shay miyaa la abuuray wax la-aan miyay iska abuurmeen am hum lkhaaliquuna mise iyagaa abuuray bimacnaa saddex ixtimaal baa geli karaya shay jooga haddaad aragto saddex mid waaye inuu iska yimid oo isagu iskeenay waxaan u jeeda inuu iska yimid si cidina ayna keeninoo iska yimid wax keenayna aan la garanaynin waa midda labaad inuu isagu iskeenoo is abuuray midda saddexaad waxa weeyaan inay jirto cid samaysay oo abuurtay oo kale saddexdaa ixtimaali mid waaye shaygu isagoon wax jira aan ahayn asagu ma is abuuri karaa ya suurtagal baa inuu isagii lafahaantiisu isa sameeyo is abuuro oo waxaan jirin isagoo wax jira iska dhigo maya waa mustaxiil caqligu ma aqbali karo shay isagu isma keeni karo ismana abuuri kara lafahaantiisu oo isaga laftiisii abuure iyo la abuure ma noqon karo taa meesha kuma jirta marka dayib ma dhici kartaa shay inuu iska yimaado dayib biyahaas haddayna hor yaallaayay inay iska samaysmaan oo caagga isku shubaan oo iyagu meesha isa soo dhigaan oo iyagoon jirin wax jira iska dhigaan ma suurtagal baa iyadana suurtagal maaha shaygu isaguna isma samayn karo asaguna muxuu ahaaye iskamana samaysmi karo ixtimaalka saddexaad ee soo hadhay wax way in la sameeyey waay soo ma in la sameeyey oo la abuuray oo la keenay waay yaa keena way marka su-aashu samadana isma keenin yaa iyadu isma abuurin dhulkani kadaalika innaga kadaalika ismaynaan keenin muxuu ahaay iskamana aynaan imaanin iyadoo waxayna keenay jirin ixtimaalka soo hadhay waa layna keenay waana layna abuuray yuu yahay cidda ina abuurtay ina keentay allah tabaaraka wa tacaala ma dhici karto kownka intan la-eg makhluuqaadka intan la-eg inay iska yimaadaan suurtagal maaha inay iyagu iskeeneenna suurtagal maaha cid baa keentoo abuurtay oo qaabkan u dhigtay waa allah tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed baa makhluuqan haddii aad aragto cid keentay baad u daliishani waataan hadda soo sheegnay afillaahi shakun faatiri asamaawaati waalard jiritaankiisa waxaa daliil u ah samaawadan iyo dhulkan baa daliil u ah leanna ayagaba haddaad qirsan tahay qasab waa inaad qirto ciddii keentay wailaa suurtagal ma aha inaad ayagana ogolaato ciddii samaysayna aada diidahay suurtagal maaha allahuma caqligaaga inuu khalal ku jira mooyaane iyo qaabka aad muxuu ahay wax u daliishanayso saas daraaddeed baa qur-aanka inta badan mas'aladaa markuu ka hadlayo makhluuqaadkan buu ilaahay u daliishadaa ya wa fii kulli shayin lahu aaya tadullu calaa annahu waaxid makhluuqaadkiisaasoo dhan baa wada aayado iyo adilo ah oo ilaahay jiritaankiisa ku tusaya tabaaraka wa tacaala waxaa ka mid a aayadaha macnaha qur-aanku ku tilmaamay ina fii khalqi asamaawaati waalard waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar wاlfulki alatii tajri fi اlbaxri bima yanfacu اnnaas wma anzla allahu min alsamaaءi min maaءin faaxyaa bihi اlarda bacda mowtiha wabaha fiiha min kuli daaba watasriifi الriyaax wاsaxaabi اlmusahari bayna الsamaaءi wاlard laaayaati
liqowmin yacqiluun u fiirsada samawaadka iyo dhulalkan abuuristooda habeenka iyo maalinta isdabamarkooda doomahan iyo maraakiibta biyaha korkooda socda iyagoo intaasoo tan oo badeeco iyo wax bini aadamka anfaca ay saaran yihiin samada biyaha ka imaanaya roobka imaanaya ilaahay dhulka ku noolaynayo oo intaasoo uu ku soo baxaya nabaataad iyo dalag iyo daaqba leh sidoo kaleeto makhluuqaadkan faraha badan ee ilaahay uu dhulka ku baahiyey ee ku firirsan ee noocyada kala gedisan leh daruurahan aada arkaysa ee samada iyo dhulka dhexdooda la sakhiray way socdaan tiir hayana ma aragno samada iyo dhulka dhexdooday socdaan intaasoo dhan markaad fiiriso calaamadaa ku sugan waa aayado waa baraahiin ku tusaysa allihii sameeyey maamulaya jiritaankiisa iyo kelinimadiisa ku tusaya waa saas daraaddeed baa waxaa leey intaasoo dhan waxaa ku sugan aayado iyo baraahiin yayse ugu sugan tahay liqowmin yacqiluun ruux fikiray oo caqli leh maskaxdiisa ka shaqeeyey fiirfiiriyey ayaa waxay ku hanuuninayaan allihii abuuray tabaaraka wa tacaala xataa ruux hadduusan waxba akhrisanin hadduusan jaamacad ka soo bixin hadduusan waxba qori aqoonin hadduusan waxba akhrin aqoonin daliilkaasi waa daliil bannaanka yaallo waay soo maa waa adilla iyo baraahiin bannaanka taalla oo kii wax bartay iyo kii aan waxbaraninba u yaallo waay waa ka ay culimmadu sheegaan nin acraabi oo reebaadiye ah ayaa waxaa la weydiiyey ilaahay jiritaankiisa waxaa la yidhi ilaahay jiritaankiisa daliil u samee baa la yidhi maxaa ku tusay ilaahay jiritaankiisa markaasaa wuxuu yidhi waa iska xoolo dhaqato waaye nin wax akhristay ma aha jaamacad ma gelin madraso ma gelin laakiin waa iska xoolo dhaqataa baadiyu iska jooga laakiin fitradii ilaahay ku abuuray buu ku noolyay markaasaa wuxuu yidhi hadal qiimo badanoo albacratu tadullu cala albaciir waalatharu yadullu cala almasiir fasamaa'un daatu abraaj wa ardun daatu fijaaj alaa tadullu cala alcasiizi alkhabiir adiga haddaad waa xoolo dhaqato xoolihiisii uu dhaqanayay dhexdooda ilaan waa wuxuu la noolaaye ayuu daliil ka samaynayaa ilaahay jiritaankiisa ku tusaya haddaad aragta buu ihi saalo meel taal maxay ku tusaysaa buu ihi ya adoo socda waxaad aragtay saalo meel taal saaladaas maxay ku tusaysaa ya waxay ku tusaysaa neefkii xoolaha ah ee saalada dhigay saala miyay iska imaan kartaa xoolo dhigay haddaan la helin saaladu waxay ku tusi buuhi ratigii dhigay neefkii geel ahaa ayay ku tusi buuhi kow haddaad raad aragto meel ku yaalla raad bini aadam raad libaax raad waraabe raad dawaco raad baad aragtay buuhi raadka aad aragtay muxuu ku tusayaa yah wuxuu ku tusayaa socod cid meeshan martay buu isaguna raadkuna ku tusayaa buuhi haddii raadkuna ku tusay cid meesha martay saaladuna ku tustay neefkii saaleeyey samooyinkan intan la-eg iyo dhulalkan iyo muxuu ahaaye waxaani seebayna kuu tusaynin buuhi allihii abuurtay tabaaraka wa tacaala ya waa reebaadiye waa acraabi soo maa intaas acraabigaasi uu gartay iyo qaabkaa uu u daliishaday brofesoorka jaamacadaha maraykanka yurub dhiga waa heli la-ay ya waa faylasuuf acraabigaasi intuu helay aan waxba aqrisanin brofesoorkii waa heli la-ay warka-inaadkan meesha yaallaya caalamkan isku dubaridani caalamkani wax way cid samaysatay baa jirta cid maamushaa jirta iskama imaanin ismana keenin ee cid keentay baa jirta cidda keentay sheeg waa midda keentay marmarka qaarkood inuu ku cararo yidhaha dabeecaa keentay waxa la yidhaha dabeeca bal dabeeca noo sifee dabeecadu awood ma leedahay ma nooshahay wax ma samayn kartaa xaggay jirtaa ma ka jawaabi karo shaydaan baa wuxuu ka duway bedelkuu dhihi lahaa allah baa abuurtay shaydaan baa wuxuu ka duway bedelkuu allah dhihi lahaa inuu yidhaha dabeecaa samaysay dabeecadii markii la bal sharaxna dabeecadii ma garan karayo habeenkii iyo maalinta isbedbedelaya miya haddaad tidhahda habeenkii iyo maalintii iyo zamankaa dabeecadda laga wada oo iyada lafteeda yaa keenay waay iyada lafteediiba waxay usii baahanaysaa cid keentay oo abuurtay bay usii baahantay daliilkaasi waa daliilka qur-aanku inta badan uu muxuu ahaayey uu inoo jiheeyo oo ah allah tabaaraka wa tacaala kelinimadiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo jiritaankiisa in uu inoo mariyo
min khilaal inaan makhluuqaadkiisa u fiirsanno min khilaal makhluuqaadka aan u fiirsanayneen dhuuxayna waxaan ka helaynaa inay nagu hanuuniyaan ilaahigii abuurtay tabaaraka wa tacaala jiritaankiisa iyo qudradiisa iyo muxuu ahaayey ee kelinimadiisa isla taa lafteeda ayaa waxay sheegaan culimmadu hadalka ay ka sheegaan alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullahi waa laga xikaayoodaa laakiin isagoo sanad leh meella kuma arkin ibn abilciz iyo qolyaha sheega laakiin waa hadal sidiisa murti u ah alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullah ayaa wuxuu qolo waxaa dood la gashay ilaahay jiritaankiisa inkirsan ilaahay jiritaankiisa bay ka doodsan yihiin markaasaa wuxuu ku yidhi akhbiruunii qabla an natakalam fi hadihi اlmas'ala can safiinatin fi dajlah mas'aladan ilaahay waa jiraa iyo ma jiro intaynaan ka doodin hal su-aal baan idin weydiin buu iiga warrama iiga jawaaba maxay tahay waxaad iiga warantaan buu yidhi doon webiga dajla doon socota doontu intay tagto bay isa soo rari iyadaa israraysa cuntay iska soo buuxin alaabtay iska buuxin badeecay iska buuxin ayadaana israraysa kadibna iyadoon cidina wadin oo naakhuudo lahayn bay keligeed isa soo celin waxay imaanaysaa xeebtii ay ka tagtay markay meeshii timaaddo alaabtay waday cidina ka dejin maysa iyadaa iska dejinaysa markay iska dejisa kadibna iyada keligeed baa webigii dib ugu noqonayso dib u qaadaysa intaasoo dhanna wax maamulaya ma jiro naakhuudo wada ma jiro xamaali wax saaraya ma jiro xamaali ka dejinaya ma jiro iyadaa ismaamulaysa bal iiga warrama buu yidhi doonta noocaas masaladan intaynaan gelin ilaahay waa jiraa iyo ma jiro bal ka warrama buu masalada iyada waxay ku yidhaahdeen abu xaniifow miyaad waalatay mise waad soo wadwadataa ya hadaa muxaal bay dheheen laa yumkin abadan suurtagal ma aha bay dheheen waxaad ka hadlaysa maxay tahay doon intay iyadu badda marto isu soo buuxiso isdejiso oo haddana ismaamulaysoon cidina wadin ya rumuudna laguma wado naakhuudo saaranna ma jiro warniyo see wax kaa yihiin waxaad la hadlaysa dadkii caqlila waxay ku hadli jireen maaha markaasaa wuxuu ku yidhi idaa kaana haada muxaalan fii safiina hadday hal doon arrinkaasi suurtagal uusan ahayn fa kayfa fii hada alcaalami kullihi culwihi wa suflihi caalamkan oo dhan seebaad ku tidhaahdeen marka isagaa iswada ya isagaa iswada isagaa ismaamulaya isagaa iska yimid ya cid ka dambaysa male cid wadda ma jirto cid abuurtay ma jirto seed ku dhahdeen buuhi hal doonna waad inkirteen caalamka intaa la egna waxaad leedihiin cid ka dambaysa ma jirto oo cid samaysatay ma jirto say ku dhici kartaa buu ku yidhi maxaa dhacay marka fa buhita aladiina kafaruu nimankii doodda u yimid halkaasuu warkoodii ku go-ay soo ma doon yarna waxaad leedahay isma maamuli karto caalamka inta la egna waxaad leedahay isagaa iskeenay oo ismaamulaya oo cidina kama damay suurtagal maaha qodobkaasi horta waa qodob daliilka koobaad waxaan nidhi waa adilatu lfitra daliilka labaadna waxa weeyaan waa daliilu lxuduud iyo makhluuqaadkani markii loo fiirsado adila caqliya la yidhaahdaa marka loo fiirsado inay kugu hanuuninayaan allihii keenay tabaaraka wa tacaala ee sameeye abuuray daliilka xigaayo wuxuu yahay waxaa la yidhahdaa waa daliilu lintidaam ama nidaam baa la yidhahdaa kownkani jiritaanka wuxuu la dheeryahay waa nadaamsan yahay waa nadaamsan yahay maalinkan nimid ilaa maalinka maanta hal nidaam buu ku socdaa qoraxdiisu meel bay ka soo baxdaa meel bay u dhacdaa dayixiisu meel buu ka soo baxaa meel buu u dhacaa samadiisu sibay u dhisanta dhulkiisu sibuu u yaallaa majaraadkii xidigihiisu sibay u yaallaan noloshu nawaamiis bay leedahay maamusha soo ma nawaamiis nidaam iyo qawaaniin baa jirta nolosha maamusha oo aadamaha awooddiisa ka baxsan waxaan sidan u nidaamsan ya ma iska nidaamsanaan karaa ya haddaad aragto caalamkani waa munadam weliba biixkaam biitqaan waa munadam caalamkani waa nidaamsan yahay si bini aadamka iyo makhluuqa caqligiisa iyo garaadkiisa ka weyn buu u nidaamsan yahay
shay nadaamsan haddaad aragto laabudda lahu min munadim marka shay nadaamsan haddaad aragto cid nadaamisay baa jirta iskama nadaamsamin soo ma cidda nadaamisay baa loo deliishanay awooddiisa iyo qudradiisa iyo noloshiisa iyo aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo khibraddiisa baa loo deliishanay inuu jiraa loo deliishan marka labaadna waxaa loo deliishanayaa inuu sifaatu kamaal leeyahay kolba qadarka kamaalkiisu gaadhsiisanaya buu tandiimkiisuna gaadhsiisanaya caalamkani waxa weeye tandiimka uu ku socdo wax yar haddii uu isbedelo laguma noolaan karo hal mithaal baan idin siinaya qoraxda kowkabkan aan ku nool lehe dhulka ah inbuu u jiraa way wareegaa wuu wareegaa meel isaga loogu talagalay iyo khad loogu talagalay buu ku wareegaa qoraxduna ku socotaa dhulkuna ku socdaa haddii wax yar dhulku uu uga dhowaado intuu hadda yahay uu qoraxda uga dhowaado laguma noolaan karo hadduu wax yar ka fogaado inta hadda uu u jirana laguma noolaan karo marna baraf baan loogu noolaanayn iyo qabow waa markuu ka fogaado markuu ku dhowaadana kulayl baan loogu noolaan karayn u fiirsada waa wax yar oo hataa aan la dareemi karayni waa laakiin wuxuu ku socdaa meeshii ilaahay ugu talagalay qoraxdu meeshii loogu talagalay khadkeedii bay haysataa dayaxu khadkiisuu haystaa majaraadkan khadkooday haystaan mid walba khadkiisii buu haystaa waa nidaam daqiiq ah oo la maamulayo oo laga koreeyo oo loo talinayo oo sidii ilaahay ugu talagalay ah haddaysan jirin cid haysa oo dejisay oo ilaalinaysa oo saa ku haysa ma iska ahaan karaa ya ma iska ahaan karo haddaad guri soo gasho guri baad soo gashay gurigii waxaad aragtay wuxuu u nadaamsan yahay si aan caadi ahayn kuraastii waxay taallaa meesheedii ya sariirtii waxay taallaa meesheedii daahiyadii meesheedu bay ku xidhan yihiin muxuu ahay waa goglan yahay waa nadiifsan yahay weelashood meesheedu baa la kala geliyey guri noocaasoo kala habaysan markaad soo gasho markaaba maxaa maskaxdaada ku soo dhacaya ya alalahi gurigan islaan xariifada joogta waa soo ma islaan gaari ah baa gurigan joogta ma taqaanid weligaa maadan arkin inay islaan ku nooshahay inuu nin ku nool yahay ma ogid islaanta ku nool ma taqaanid laakiin inay qaabkan cidi u habaysay oo sidan loo kala dhigdhigay isagu isma dhigdhigin soo ma marna ma rumaynayso inuu isagu sidan is yeelay laakiin maxaa kuu soo baxaya waxaa kuu soo baxay cid baa yeeshay ciddii sidan yeeshayna sifay leedahay ya waa cid sifaadka noocaas le cid kale sidan ma samayn karto sidaas daraaddeed caalamka nidaamsan wuxuu ku tusayaa allihii sameeyey tabaaraka wa tacaala jiritaankiisa iyo cilmigiisa iyo noloshiisa iyo sifaadkiisa kamaalka ah buu tilmaamayaa oo loo deliishanayaa si cadna uu ku tusayaa daliilkaana waxaa la yidhahdaa daliilu intidaami alcaalam ama daliilu nidaam haddii allah tabaaraka wa tacaala uusan gacanta ku hayn lahayn oo waa-un inta la sameeyo faraha laga qaadi lahaa iskama socon karo xataa haddaan la ilaalinayni iskama socon karayo haddii waa hore inta la sameeyo faraha laga qaadi lahaa sidaa uma socon karayo intidaamka iyo habaysnaanta iyo kalqaladamaynta iyo qorshaha kuma socon karayo waa la sameeyey sidaasaana lagu ilaalinaya xilligii ilaahay uu doonay tabaaraka wa tacaala oo ugu talagalay inuu wax iska bedelana waxbaa iska bedelaya ya qoraxdani saa ahaan mayso dayaxani saa ahaan maayo dhulkani saa ahaan maayo makhluuqaadku saa ahaan maayaan xilligii loogu talagalaa markaa la gaadhay soo maa isbeddel baa ku dhacay waxaa la yaab leh khubarada hadda iyo falaasifadan ilaahay jiritaankiisa inkirsanay in badan oo ka mid a waxay rumaysan yihiin bini aadamka adduunka hadda joogaayey isbedelada ku socda kownkaaya inay yihiin waxaan horay u jiri jirin wax maskaxdoodii awooddoodana ka weyn waayo haddana maca daalika waxay ku hanuuni la-yihiin waxa ciddan samaynaysa cidda waxaan samaynaysa inay tahay allaha tabaaraka wa tacaala sare ee kownkan abuurtay intaasaa ka maqan intaa inay ku hanuunaanna maxaa u diidan shaydaan baa ka hortaagan shaydaan baa ka hortaagan oo u diidan marka intidaamkaa isagaa wa qur-aanku meeluu ku tilmaamay allah tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi low kaana fiihimaa aalihatun ila allahu la fasadata samadan iyo dhulkan iyo makhluuqaadkan hadday ilaahyo kale jiri lahaayeenoo hal ilaah keliya mooye hadday kuwo kaloo badan jiri lahaayeen way fasaadi lahaayeen bimacnaa nadaamsanaantu waxay ku tusi hal ilaah baa u taliya hal baa u taliya hadday laba ahaan lahaayeen
saa uma nadaamsanaadeen aayadda kale tilmaamaysa wamaa kaana macahu min ilaahin idan la dahaba kullu ilaahin bima khalaq walacalaa bacduhum calaa bacdin hadday tiro ahaan lahaayeen kownkan waxa ka taliyahay oy ilaahyo kale jiri lahaayeen mid walba qeybtiisuu qaadan lahaa qaarkood baana qaarka kale ka sara mari lahaa way islayn lahaayeen laba ilaahoo isku awood ah yaa way isqabsan lahaayeen kadibna way islayn lahaayeen kadibna way kala adkaan lahaayeen ama way qaybsan lahaayeenoo mid walba qeybtiisuu la dhaqaaqi lahaa waxaan arki lahayn dhulkiioo meeshiisii midi la tegey oo maamul kale ka socda samadiioo midi qaatay oo maamul kale ka socda waxaan arki lahayn dagaalkoodiioo meesha ka socda waxbaa inaga soo gaari lahaa ila meeshaan ku nool lahay soo maa laakiin ma aragno samadii sideedii bay ku socotaa dhulkii sidiisiibuu ku socdaa nidaamkiibuu ku socdaa fasaad iyo isku hormaad iyo isku dhac kama socdo waxaa maxay kutusaysaa hal ilaah baa maamulaya hal ilaah baa maamulaya haddii maalan hadda lilaahi almathalu laclaa laakiin haddii maalan dalkan aan joognooo kale laba madaxweynoo isku awood ah ay ka jiraan maxaa dhici lahaa ya maxaa dhici lahaa way isqabsan lahayen soo maa way isqabsan lahayen markay isqabsadaanna laba mid bay noqon lahayd inay kala adkaadaan oo midka reerka u adkaada uu ku soo hadho ama ma ahee inay qaybsadaanoo Mombasa iyo coastigana midi la tago Nairobi iyo westigana midi la tago soo ma oo inagii marka aan ku kala biirno qaybna ay midna qaybina ay ka raacdo waa layna qaybsan lahaa laakiin laba madaxweyne iyo laba awoodoodo isku mida ma jiri karaan meel kama wada talin karaan kawnkani inuu hal ilaah leeyahay waxa daliil u ah sidii aynu ugu nimid booli ku socdaa wax iska hor yimid iyo wax isku dhacay iyo wax isku qabsaday iyo wax kala adkaaday iyo wax isku laayay midna ma jiro wuxuu ku tusi marka hal ilaah baa maamula oo aan la inkiri karin amthilada xisiga culimadu tilmaamaan waxa kamida oo ay masalada markay ka hadlayaan ay tilmaamaan aathaarta bini aadamka markuu ilaahiisa baryo oo uu tuugo u helayo arkayo ya waad dhibaatootay ilaahay baad bariday wixii baad heshay yaa ku siiyey allahaad bariday waa ku siiyey waxay ku tusaysaa jiritaankiisa ay ku tusaysaa aan soo gabagabeeyo adilada waxaa ka mid ah wax loo yaqaano aladilla sharciya adilada sharciga wax weeyaan ilaahay jiritaankiisa kutubta samaawiga ee xagga ilaahay ka timid sharaa'icda samaawiga ah dhammaantood nebi aadam laga soo bilaabo ilaa rasuulkeena maxamed sallallahu alayhi wasallam ugu dambeeyay wixii kutub ilaahay soo dejiyay oo dhan mabda'a way ka midaysnaayeen in adoomada la baro inay rumeeyaan oo qiraan ilaahay jiritaankiisa kelinimadiisa xuquuqda uu ku leeyahay inay caabudaan waa waxa ilaahayba kutubta iyo rusushaba kutubtana u soo jeeday rusushana u soo diray mabda'aasi marka wuxuu ahaa mabda' sharaa'icda samaawiga ay ka sinaayeen ayuu ahaa su'aal baa marka imaan karaysa adiladu hadday fitri tahay caqli tahay xisiman marka qaarkood ay noqon karayso sharcina ay tahay adilada ilaahay jiritaankiisa ku tusaya wax hadal iyo muran la gelin karana ayna mas'aladu kaba weyn tahayba su'aal baa la isweydiinaya maxaan ilaahay u arki laanahay waana masalada ay qolyahan ilaahay jiritaankiisa inkira malaaxidada ah oo culumtan tajriibiga la yiraahdo inta badan kuwa yaqaan ah waxay ku leeyihiin wax la taaban karo ama la arki karo haduusan ahayn wax jira ma xaqiiqadu wax weeyaan waxyaalo fara badan oo waxa jira aynaan taaban karin arkina karin hadana jira meel fog baha aadi nafta inugu jirta soo naf inugu ma jirto طيب nafta kugu jirta itusoo itaabsi ya shirka waa taaban karna waana arki karna sooma lafihiisa haragiisa xibnihiisa seedihiisa dhiigiisa waa wax la arko la taaban karo waay laakiin nafta inugu jirtaay ee ku socsocono ee marka inaga baxdana aan iska qalafayno aynu muxuu ahay aynu muxuu qaboobayno aaway nafti itaabsi maxay ka samaysan tahay wax ishu arki karto ma tahay wax la taaban kara ma yahay
haddii makhluuq yar oo inugu jiro inaga mida aynu jahliga intaa lee kaga sugannahay oo inaan garanaynin xaqiiqadiisa wax badan inaan ka aqoonin sida qur-aanku bay noo sheegay yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan wax yar baa bini aadamka loo furaa ninkani marka waxa way faylasuufka ah ama dhakhtarka ah ama aqoon-yahanka isku sheegaya ama brofesoorka ah haddii waxoogaa wixii uu gaari kari waayo wax ka garan kari waaye wuxuu soo istaagayaa maba jiraba warheedhe garasho la-aantu jiritaan la-aan ma aha garasho la-aantu waa jahli laakiin jiritaan la-aan ma tilmaamayso inaad adigu aada jaahil tahay oodan wixii garanaynin oodan gaadhin bay ku tusi laakiin caalamka intaan ka ognahay intaan aan ogeyn iska daa khaaliqe makhluuqa intaan ognahay intayna aan ogeyn kee badan intaynaan ogeyn baa badan 20 sane ugu dambeysay caalamku intuu iktishaafad gaadhay oo waxyaalo aan horay loo aqoonin aadamuhu uu sir ah uu furtay oo ilaahay u furay soo ma badna ma jirin miyaa waxyaalahaas internetka iyo wasaa'ishan khadkan uu isticmaala ma jiray mise ma jirin waa jiray waxyaalahani waa jireen laakiin bini aadamkan loo furin soo ma maalinba waxbuu ka ogaanayaa caalamkan asraarta dhex taalee ballaadhan ee ilaahay sameeyey baa maalinba in yar looga furayaa jaahilkii marka aan wax badanba loo firinoo waxba garanayno naftiisaan waxba ka aqoonin ayaa intuu soo fadhiistuu leeyahay ilaahay jiritaankiisa iga dhaadhici war adiga naftaada iga dhaadhicisay u taallaa maxay ka samaysan tahay itaabsii ma garan karo haddaadan garan karin adiga laftaadii baa naftaada jaahil ka ilaahay afka hala gaadhin baraahiin cadcad waay ilaahay lagama doodi karo jiritaankiisa su-aashu waxay tahay marka allah tabaaraka wa tacaala maxaan u arki la'anahay jawaabtu wax weeyaan allah tabaaraka wa tacaala qaabka uu u jiro lama arki karo makhluuqu ma arki karaan aadamuhu ma arki karaan maxaa yeelay ma xamili karaan aragtidiisa iyo daawashadiisa ma xamili karaan haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala ay arkaan oo uu isu faydo waa shiilmayaan ayaga dhanba waa gubanayaan marka lama xamili karo ilaahay aragtidiisa adduunka inta la joogo waxaana daliilkuugu ah nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu rabbi ku yidhi arinii andur ilayka rabbiyow iskay tus aan ku fiiriye alla muxuu ku yidhi lan taraanii walaakin indur ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa wakhara muusa saciqa ilaahu iskay tus buuhi nabi muuse aan ku arke alla wuxuu ku yidhi ma arki kartide laakiin buurtaa u fiirso buurtaa fiiri baa leeyahy allah buurtii buu wax yar isu muujiyey buurtii markay ilaahay aragtayna way shiilantay jacalahu dakkan ayadoo dhan way burburto way shiilan way xamili kari weye nebi muusena hawlkii meesha ka dhacaya darteed ayuu isaguna la suuxay waxa meesha ka socda nebiga xadiidkiisii fi saxiix muslim waa kii ahaa nebigu sal lla alay wasalam uu lahaa xijaabuhu nnuur low kashafahu la axraqat subuxaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min khalqihi ilaahay xijaabka isagii addoommadiisa u dhaxeeya ee kala asturaya waa nuur wejigiisa nuurka ka baxaya iftiinkiiyo dhalaalka ka baxaya hadduu addoommadiisa u furmi lahaa cid alle cidduu gaadhaba way guban lahayd buu nebigu uri sal lla alay wasalam marka bini aadamkani ma xamili karo iska dhaaf allahaase tabaaraka wa tacaala qoraxdan oo makhluuq ilahay makhluuqaadkiis ka mid ah qoraxda iyada ah baynaan siday tahay u fiirin kara u arki karayn nin culimmadii ka mid a ayaa nin madaxa oo mulxid ahabaa wuxuu ku yidhi ilaahay u tus wuu kaxeeyey maalin ay qoraxdu aada u kulushahay oo ay samada bartamaheeda taagan tahay buu kaxeeyey buur korkeeduu saaray markaasuu wuxuu ku yidhi qoraxda fiiri buurtii markuu saaro qoraxdii fiiriyey indhihii baa gubtay waa fiirin kari waaye indhihii oo ilmo ka daadanaysu yuu dib usoo xeshaday wuxuu ku yidhi qoraxdan maxaad indhaha ugala soo laabatay maad aragtidood sifaysidoo say tahay indhahaagu ay u dareemaan markaasuu yidhi ma dhici karto
makhluuq ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid a haddayna indhahaagu qaban karaynin allihii abuurtay maxay kula tahay marka ninkii mulxidka madaxda waa islaamay waaba intaaba soo maarta marka ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqiisu ma xamili karaan inay daawadaan ama arkaan ma xamili karno awooddeeda ma lihin sidaas daraaddeed baa mu'miniinta markii aakhare la tago abuur cusub baa ilaahay abuuraya qaab waxaa loo abuuri doonaa ay ilaahay daawan karaan bal daawashadiisa ay ku raaxaysan doonaan laakiin sida hadda aan u abuurannahay makhluuquna u samaysan yahay ilaahay ma arki karo tabaaraka wa tacaala mana daawan karo qodobka labaad ee ilaahay aynaan u arkayno waxa weye adduunka markaynu joogno waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala daartan wuxuu ka dhigay daar laysku imtixaano inuu iska keen qariyana waa imtixaan maxaa yeelay haddii uu muuqan lahaa cid walba waa rumayn lahayd soo saas maa in addoommadiisa imtixaanoo la kala baxo qaarna diidaan qaarna rumeeyaan inuu isqariyo oo addoommadiisa iska qariyaa keenaysa saas daraaddeed baa sifaadka mu'miniinta ilaahay uu ku sifeeyey waxaa loogu horreysiiyey aladiina yu'minuuna bilghayb alla iyagoon arkaynin bay rumeeyeen kuwanina way diideen oo way inkireen iyagoon ilaahay arkaynin bay caabudeen oo ateeceen kuwanina way diideen sidaasaa marka janniya naar lagu kala mudanaya imtixaanka qaar ku dhacay iyo qaar ku baasa la kala noqonaya masale imtixaan wey marka dhinac kale marka laga fiiriyo xikmadda ku jirta inuu ilaahay addoommadiisa imtixaan oo kala saaro qaarna sidaa ku rumeeyaan isagoo iyagoon arkaynin qaarna ay yidhaahdaan maya ma rumaynayno kadibna janniya naar uu kala geeyo iyadana waxa weye xikmad ku jirta waay arrinta marka waxa weeyaan waa masalo u baahan faahfaahin intaa ka far badan lakiin waqtigaa iska kooban ilaahay jiritaankiisa tabaaraka wa tacaala warka murtidiisu waxa weeye jiritaanka ilaahay cidda ka shakisan isaga jiritaankiisa inuu iska shakiyaa ka horeeya adiga haddaad isqirtan tahay inaad wax jira tahay ilaahay jiritaankiisa marna kama shakin karti maxaa yeelay adiga jiritaankaaga ilaahay jiritaankiisaa sabab u ah hadduusan alla jirin adiguna ma jirtid dhulkuna ma jiro samaduna ma jirto makhluuqaadkuna ma jiraan masale badiihi oo bannaanka taalla way marka laakiin waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shay-an badiihiyaadka bannaanka yaalle iska cad ciddii ilaahay uusan tusin arki mayso ciddii shaydaan duufsaday arki mayso ya ciddii ilaahay haleeshiiyo ayaa arkaysa addoommadu marka waxa weeyaan waa saddex waa mulxid iyo mushrik iyo mu'min mulxid waa midka ilaahay jiritaankiisaba inkirayba mushrigna ilaahay jiritaankiisa waa rumaysan yahay laakiin cibaadadii ilaahay uu goonida u lahaa buu la wadaajinaya addoommo kaluu kala qaybgelinaya waa mushrik waana sida loo badan yahay addoommadu uma badna inay ilaahay jiritaankiisa inkiraan laakiin way qirayaan xaqiisiibaysa cid kale la wadaajinayaan waana shirkigii carabta iyo caalamku u badan yahay inta badan qaybta saddexaad waa dadka mu'miniinta ah oo ilaahay jiritaankiisa iyo kelinimadiisana rumaysan xaqiisana guto keligii siiya mu'miniin way kuwaasun waxaa badan marka labada qaybood oo kale mushrikiinta iyo mu'miniinta badan mulxidiintu horeyna ma badnayn haddana ma badna mulxidiintu waa qaybta ugu yar oo ilaahay jiritaankiisa inkirsan oo aan rumaysnayn intaasi iyaan insha allahu taala kelimada kusoo koobaynaa tafaasiil badan bay u baahantay lakiin waqtigaa iska kooban hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى الشيخ بركايه إلهي سبحانه وتعالى نقدر الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سؤالها ولا لها يسوق قرين وحيوب بدنا سؤال موضوع كم أحسن الشيخ وحمودين إن سدح سؤال سأفر سؤال والموضوع كسابسا laba waxay ku saabsan yihiin saddex su'aal waxay ku saabsan yihiin mawduucyadii culimada hore ay ka hadleen hal su'aalna waxay ku saabsan tahay sheekha mawduuca uu ka hadlay waxaan ku hormaraynaa sheekha mawduuca uu ka hadlay su-aasha ku saabsan sheekh waxaa ka hadashay in allah subxaanahu watacaala adduunyada aan lagu arkaynin aakhiro ma la arkayo ilaahi subxaanahu watacaala haddii la arkayana maxaa u daliila mise dadkoo dhanna ma wada arkayaan mise dad gooniya baa arkaya masalada ilaahay in aakhiro lagu arkayo waa mas'alo qur-aanku sheegay sunnada nabiguna sal alla alay slam mutawaatirka ah ku timid salafkuna ridwaanullaahi calayhim ay isku waafaqeen
qur-aanku aayado dhowru ku tilmaamay wujuuhun yowma-idin naadiratun ilaa rabbihaa naadira, wejiyo ilaahay bay maalinta qiyaamada fiirinayaan oy daawan doonaan. sidoo kale allah tabaaraka wa tacaala wuxuu uhi liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada, dadka adduunka intay joogeen wanaajiyey camalkooda waxay leeyihiin tii ugu wanaagsaneyd oo jannada ah, siyaadana way leeyihiin buu alla yidhi tabaaraka wa tacaala. nebi maxamed siyaadada wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim, ilaahay wejigiisaoo la daawan doono buu ku fasiray. aayadaha macnaha tilmaamaya marka way fara badan yihiin. magaa la wada arkayaa mise dad gooniya arkaya? ilaahay waxaa daawan doono ku raaxaysan doona daawashadiisa iyo fiirintiisa maalinta aakhar waa muuminiinta oo keliya, amaa gaalada maya. waxaa rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay kalaa inahum can rabbihim yowma-idin lamaxjuubuun, maalintaa marka la gaadho rabbigood waa laga xijaabayaa, ma istaahilaan inay ilaahay daawadaan tabaaraka wa tacaala. marka iyaga la tusi maayo gaalada, laakiin dadkii mu'miniinta markay jannada galaan ayuu alla tabaaraka wa tacaala jannada dhexdeeda waxa yaalla wax ka qiimo badan oo ka fiican ayuu siinayaa, oo ah in uu ugu nimceeyo daawashadiisa. marka hadday tahay yaa arkayana waa mu'miniinta oo keliya, oo gaaladu lama wadaagayaan. gaalada waxaa lagu ciqaabayaa in ilaahay iska xijaabo. muxuu ahaayey masalada aragtiduna oo ilaahay in la arkayo maalinta aakharana waa masalo qur-aanka iyo sunnada mutawaatirka intaba ku yimid, culimadii salafkuna isku waafaqeen ridwaanullahi calayhim. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. su-aashan wuxuu leeyahay sheekhu wuxuu ka hadlay waxyaabaha fitanta waxaa ka mid ah social mediaha oo la isticmaalayo. marka gabadhan waxay leedahay haddii facebooka ama wixii lamid a aan fiiriyo ama isha iga dhacaan wixii xumaanta oo meesha ku jira oo aan sheergaraynin ama dadka kale aan la wadaagin, dembi ma iga soo gaaray? social mediaha ama warbaahinta waxyaalaha bini aadamku wax isku gaadhsiiyo oo dhan waxaa la yidhaahdaa waa silaax duu xaddayn, waa hub laba afle waaye. xumaanna waa loo isticmaalaa, wanaagna waa loo isticmaalaa, laakiin inta xumaanta u isticmaashaa badan 10% ma dhanna khayrka ku jira iyo wixii wanaagga loo isticmaalo. maxaa yeele caalamka hadda isticmaala ayaa u badan gaalo iyo munaafiqiin iyo fusaaq u badan. sidaas daraaddeed waa suuq nin walba badeecadiisa u keensanayo waaye. kii mulxidka ahaa ilxaadkiisuu keenaya, zindiiqii zandaqadiisuu keenaya, mubtadicii bidcadiisuu keenaya, mushrikii shirkigiisuu suuqa keensanaya. waa suuq marka wax walba yaallaan. suuqaa marka qashinku ka buuxo, haddii aad adiga dhex gasho oo aada muxuu ahay dhex dabaalato, shaki ma laha adoo fayow ka soo bixi maysa. ama shahawaad baa kaa soo raacaya oo meesha shahawaadka ka jira wuxuu kaa saameynayaan, ama shubahaadkooda wax ka mid a meesha ka jira ayaa ku saameynaya. sidaas daraaddeed waa in aada looga taxadaro. haddii aad ka maarmi weydo oo ama aada dan ka yeelato ama aada doonayso inaad wuxuun ka faa'iidaysato mawaaqic mucayana, meelo mucayanood og tahay inaad wax ka faa'iidayso, waxaan akhlaaqdaada iyo diintaadii waxba gaadhsiinaynin, waxaan aakhiradaada wax yeelaynin, wax nafci adduunyo mubaaxa uu ku jiro, ciddii u isticmaalaysa si taxadar leh inay u isticmaasho waay, isagoo ka iska ilaalinaya adraarta ay leedahay, aada iyo aada uga taxadaraya. haddii ay dhacdo adiga oo dan iska bannaan qabsanaya, ama ma ahee waajibba ku gudanayo diin ku faafinaya, ama ma ahee muxuu ahaayey wax ka dhegaysanaya, haddii ay dhacdaba inaad yacni wax weye ishaadu wax ku dhacdo, markaasi wax weeyaan ha sii wadin. bimacnaa wax weeye ishaada halkaa maray ku dhacday waxba kaa soo raaci maayo, laakiin ha sii daawanin. nabigu sal lla lay slam waa kii lahaa cali, waa kiu lahaa aragtida fiirada hore adaa iskale. fiirada hore marka hore ishu kaaga dhacday yani dembi laguu qori maayo, laakiin haddaad sii daawato ya ood ku celiso, ood mar saddexaad ku celiso, oo aad sii macaansato, markaa waay. waana runtii wax wey aada bay halis u tahay. waayahan dambe meeshaasi dhalinyaro badan baa diinta kaga baxay, ilxaad iyo balaayo ka gurtay, qaar badan baa akhlaaqdii ka luntay, gabdho badan baa la fasaadiyey
oo meeshaa intay wax ka raadsadeen sharaftoodii ku ciyaaray ya yani waxa weeye guur iyo nin la guursaday iyo balaayaa meesha laga doonto adiga qashanqub haddaad nin ka raadsata ka war ya ninka meeshaa ku jiraay waa uun nin uun si wax ka yihiin inta badan marka gabdho fara badan baa istidraaj lagu sameeyey yani wax weeyaan rag fasaqa oo khariban ay isaga dhigeen muxuu ahay rag khatar ah u gacan galay kadibna wax wey lagu ciyaaray oo sharaftoodii dhimatay sidaas daraaddeed meeshu meel sahlan maaha social media akbar fitna oo adduunka hadda kusoo kordhay waa fitna ka weyn ma jirto idaacad baa laga hadli jiray telefishin baa laga hadli jiray waxbaa laga hadli jiray laakiin wixii oo dhan waxay noqdeen iqarsay noqdeen fitna maanta ka weyn caalamka oo internet iyo muxuu ahaaye iyo social media ka weyn adduunka maanta ma marayso fitnada noocaasa marka ruuxii u badheedha nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam fitnada ka carara miyuu yidhi mise ku carara ya fitnada ka carara buu nabi yidhi sal alla alay wasalam ya intaad carari karta ka fogow markay dani kugu kalifto oo aad muxuu ahaaye ka maarmoy inaad ka adeegatana taxadarkaaga qaado haddaad yeeli weydo soo maa shawriyaaku aday kusuusaa markaas hawl adig ku taalo wallahu aclam jazaaka allahu khayran waxyaabihii laga hadlo waxaa ka mid ahaa fitanta in looga badbaado barashada diinta marka walaalka su-aasha soo qora wuxuu leeyahay sidee uga badbaadi karaa sidee u baran karaa diinta islaamka sidee u baran karaa diinta islaamka barashadeedu waa fududahay ma adka walaqad yasarna alqur'aana lidikri qur-aanka ilaahay waa fududeeyey barashada diintuna qur-aankaa asal waa isagayna ka bilaabataa waxaa lagaga baahan yahay keliyata la imow qasad la imow iraado jaazim ah go-aan inaad diinta barato inay dhabkaa tahay go-aankeedina la imow dadaalkii ku dar go-aan keliya ma ahee dadaalkiina ku dar dadaalkii markaad ku darto inaad hesho cid aada wax ka barato iyo meel aad wax ka barato iyadana waa mutawafir culimadii baad joogta masaajiddaa laga bartaa madaaristii goobihii diinta laga baranayo waa la helayaa bal iskaba dhaafee duruus fara badan iyo wax badani waxayba ku jiraanba iyagoo duuban baaba la heli karaaba oo mawaaqicda muxuu ahay bay ku jiraan marka inaad hesho iraadadii iyo dadaalkii iyo alisticaana billaahi xirsi marka lagaa helo inaad ilaahay kaashatood kaalmaysato iyo markaa kadib inaad hesho cid aad wax ka baran lahayd iyo sheekhii iyo dariiqii iyo manhajkaad wax ku baran lahayd iyo ciddii kugu ilaalin lahayd muxuu ahay haddaad hesho way fududahay diinta waa la baran karaa barashadeeduna da ma ah barashadeedu da kastaa baran karta odaygaa baran kara habartaa baran karta dhallinyaraa baran karta aaday u fududahay saas daraaddeed baa hadda duqay waaweyn oo waxaad arkaysaa intay diinta farbar bilaabeen hadda meel fiican maraya meel fiican hadda ay u marayaan ayaa la helaya oo diinta ilaahay fududeeyey haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala diinta barashadeeda fududeeyey seen loo baran karin way fududahay wax ka adag bay odayaashu hadda baranayaan markii ay tagaan wadamada yurub iyo markay odayaashu tagaan iyo duqeyda habruhu markay tagaan oo la yidhahda caydha laydin siin maayo inaad luqadda danishka barataan mooye ama swedishka habartii buug bay qaadani oo odaygii subaxdii waa kallihii oo iskuul baa la geli 2 bilood kadibna waxaad arkay iyagoo jajabsanahaya muxuu ahay danishkii iyo muxuu ahay iyo swedishkii iyo finishkii iyo wixii iyagoo jajabsanayaad arkay luqad gaal oo bini aadam ayaad baratay fartiina waad keentay inaad ku hadashana waad keentay inaad wax ku fahantana waad keentay miyayna suurtagal ahayn qur-aanka inaad fahanto oo aad fartiisa baratood macnihiisa garato adoo habara ama duqa sayna suurtagal ku ahayn ya waa suurtagal laakiin mushkiladu wax weeye tanna waxoogaa calafaa kaa galay waxoogaa yaroo waxaa kaa galay hunguri ah oo caydh yar oon qiimo lahayn baad ku raadsanaysaa ama inaad waddanka ku joogto ama inaad sharci ku qaadato tan oo aakhiradaadii ay ku salaysan tahay adduunkaagii maslaxadaadiina waxa weeye dadaalkeedii waxaan lagaa haynin iyo casiimadii loo baahnaa saas daraaddeed asal waxaa kaa casiimada dadaalka in ilaahay ku waafajiyo inaad hesho ciddii iyo qaabkeed wax ku baran lahayd wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aashan waxay leedahay sheekh mulxidiinta waxay sidoo kale shaki geliyaan cadaaladda ilaahay waxay leeyihiin hadduu ilaahay cadaalad badan yahay
muxuu qofna indhaha u tiraa qofna indhaha ugu fiicneeyaa ama qofna faqri u yahay qofna taajir mas'aladaas ilaahay afcaashiisa ku saabsani fiqigeeda waxaa fahmi kara ama garan karaya ciddii baratay ciddii baadhay way fududahay ruuxu inuu iska yidhaahdo muxuu ahay hadal culus iska tuuro laakiin shay walba aqoon iyo barasho u baahan yahay shay kasta oo ilaahay samaynaya xikmad baa ku jirta laakiin xikmadda ilaahay afcaashiisa ku jirtaay adiga ma gaadhi kartaa mise ma gaadhi kartid inteese ka gaadhi kartaa haddaad gaadhi karayso xikmad baa ku jirta ilaahay addoommadiisa inuu qaar imtixaano qaar wax siiyo qaar qadiyo qaar ibtileeyo imtixaan baa ku jira ayaga waa la fiirinayaa kuwa kale waa lagu fiirinayaa nataa'ij baa ka dhalanaysa imtixaankaa la marinayo nataa'ij adduuniya aakhara ka dhalanaysa ilaahay baa sidaa u dhigay tabaaraka wa tacaala xikmaddiisaana keentay haddaan hal mithaala idiin soo qaado faham fiqiga ku jira qur-aanku tilmaamay xikmadda ku jirta aadamahan haddii kulligii wada taajir laga wada dhigi lahaa kulliga nin walba wuxuu rabaa la siiyey ma baahna noloshani ma jiri kartaa ya sayna u jiri karin waa wada dheregsantihiine haddaad wada dheregtaana mid walba wuxuu rabay la siiyo ya ma socon karto sayna ku soconaynin adiga bini aadan baa tahay soo meeshaad ku saxaroon lahayd uma baahan meeshaad ku kaaji lahayd ma u baahan tahay yaa kuu qodayay anigii kuu qodi lahaa taajir baan ahay kuuma baahni ya soo guri in laguu dhiso uma baahni yaa kuu dhisay fuundi baahan ya oo raba inuu meeshaa wax ka helo baa guri kuu dhisay isaga musqusha kuu qoday guriga waxa kaaga adeegayo shaqada kaa qabanayo waa ruux baahan soo saas maa midka gaadhiga kuu keenaya ku kaxaynaya xagga ku keenaya baahi baa u geynaysa inuu baabuurkan wax ka helo bini aadanka inuu baahnaado liyattakhida bacduhum bacdan sukhriya haddii la waayo noloshani ma jiri karto soo maaragti sidaas daraaddeed waa hal mithaal waay ilaahay muu dadka wada dherjiyuu leeyahy war hadduu dherjiyo oo cid walba wixiisa la siiyo aadamo isku xidhan oo isu baahan oo baahidiisii kala helaya oo wada ganacsanaya oo shaqo isu qabanaya xaggee laga heli laha ma la heleen ilaahay baa saa u dhigay tabaaraka wa tacala waa xikmad ka mid a kan muxuu u qadiyey isagaasaa yeelay xikmaddiisa waa laakiin xikmadda ku jirta adiga ma heli kartaa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa caadil cadaaladdiisana waxaa ku tusaya kan uu sidaa yeelayna ilaahayga tabaaraka wa tacaala abuurtay baa sidaa yeelo maslaxadiisa u arkay kan uu sidaa yeelayna isagaa sidaa yeelo maslaxadiisa u arkay sideedabana maslaxada waxay ku jirtaa sidii ilaahay wax u dhiga tabaaraka wa tacaala cadaaladuna waxay ku jirtaa sidii ilaahay wax u dhigay tabaaraka wa tacaala laakiin bini aadamka inta badan aan baranin meel dhow buu wax ka fiirinaya meel aan fogeyn ayuu wax ka fiirinaya sidaas daraaddeed buu ilaahay maagi oo ilaahay caayi oo cadaalad darro ku sheegi oo uu muxuu ahaay aflagaadayn leanna waxa weeye waa jaahilaan ilaahay aqoonin tabaaraka wa tacaala ilaahay marka waa caadil waxyaalahan addoommadiisa uu ku samaynayana ama waa bifadlihi ama waa bicadlihi kii uu dheeraad siiyo wax siiyeyna fadli weeye kan uuna siininna cadaaladiisuu kula dhaqmay cid ilaahay wax kulana ma jirto soo ma adiga goormaad ilahay wax ku yeelatay goormaad dayn ilaahay ku yeelatay goormaad ku yeelatay inuu sidaa kaa dhigo ma ilahay baan wax ku leenahay addoommadiisii baan nahay siduu doonu tasarufayaa kuu dheeraad siiyeyna waa fadli kii uusan siinin oo ka qadiyeyna waa cadaalad buu kula dhaqmaya marka wax weeyaan waa arrin hadal aada iyo aada u culus oo khalada waa hada billahi tawfiiq su-aasha ugu dambeysa qofkan wuxuu leeyahay waxaa laga hadlay in fitanta ay ka mid tahay qofka inuu wuxuusan cilmi ilahayn uu dadka u sheego taasna fitanta ay ka mid tahay oo dad badan fitanta ay u sababtay inay sheegeen wax badan oo cilmi u lahayn cilmi aysan gaarinna ay rabaan inay ummadda u sheegaan marka qofkan wuxuu leeyahay sheekha daaci baan nahay wixii aan naqaano iyo axaadiista aayadaha intaan ka aqaana baan ummadda gaarsiiyaa taa ma ku dambaabaya oo dembi ma iga soo gaaraya hadduu qalad iga dhaco mararka qaar anigoo wax sharaxaya hadduu qalad iga dhaco
dadka in wax la gaadhsiiyo oo diinta loo sheego khayrka la faafiyo oo xumaanta dadka looga digo oo laga saxo waa mabda asaasi oo mabaadi'da diinteena ka mid ah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar waa tiir weyn tiirarka diinta ka mid ah laakiin wuxuu salka ku hayaa aqoon buu salka ku hayaa ala basiratin ana wa man ittaba'ani ruuxu wuxuu sheegayo waa inuu yaqaano waa inuu garanayo waa inuu hubiyo ma aha in laga wado inaad diinta wada koobtay ama caalim mujtahida inaad tahay ama aqoon aad u baahsan inaad leedahay sharti ma aha laakiin maadada aad sheegayso waa inaad hubiso waa inaad si sax u sheegto aayad baa dadka u fasiraysaa waa inaad aayadda tafsiirkeeda hubto inay sax tahay xadiid baa dadka u fasiraysaa waa inaad hubto xadiidkani sidaad u fasirayso inuu sax ku yahay inta haddaad garato intaad garanaysaa gudbin wadaad baa muxuu ahay aayaddii uu garanayay markuu fasiro yuu bad kala geli baddaasuu marka ku dhiiqanaya laanna wax u diyaarsanaa iyo wuxuu garanaya maaha marka inta aad garanayso haddaad sheegto waad sax waana intii loo baahnaa waay balliquu cannii walow aaya hal aayada ha noqoto garo fahan gaadhsii laakiin waxaadan garanaynin waxaadan garanaynin ha jiidhin waxaadan garanaynin ha dardarin waxaadan garanaynin ha gelin laanna dunuubta ilaah laga galo kuwa u waaweyn ba waxaa ka mid ah wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun ina asamca waalbasara walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula marka wax weeyaan intaad hubso ku gaabso waxaadan hubin oodan aqoonteeda lahayn ha gelin hadday dhacdo in ama carabku uu kaa xado ama adiga oo ka hadlayaba waxaadan ku talagelin marka qaarkood inay kaa dhacdo ood ogaato waa inaad saxdo waa inaad islaaxiso khaladkii dhacay ha ka baqin hana ka xishoonin inaad tidhahdo waan khaldamay arrintaas saas mahayne saasay ahayd waa saasaa lagaa rabaa bini aadamku waa khaldamayaa khata'a uusan ruuxu u qastinna sideedaba ummaddan ilaahay u qaban maayo waa nin sheekha culimadana waa ka dhacdaa culimada waaweyn bay ka dhacdaa culimadeenna horey ka dhaceen cid macsuuma ma jirto masaluu taqriirinaya khalad waa ka geli karaa masaluu sharxaya khalad waa ka geli karaa aayad buu tafsiirinaya khalad waa geli karaa una u qastin wixii aan loo qastin marka laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na qad facaltu buu ilahi tabaaraka wa tacala wixii marka wax weeye ismoodsiis u dhaca ilaahay noo qaban maayo laakiin waa inaan saxno waa inaan markaad ogaato aad si ka saxdo way oo muxuu ahay aad istidraag samayso haddiiba aad ogaato inay wax kaa khaldameen waay marka looga baqi maayo in diinta la faafiyo haddaad tidhaahdo amuu khalad iga dhaca amuu khalad iga dhaca oo ay khalad baa iga dhici kara ay diinta sheegiddeeda